Mawduucan aad ayuu muhiim ugu yahay barashada luqadda Ingiriiska waxa uuna kuu tilmaamayaa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee luqadda Ingiriiska aad ku baran kartid. Taasina waa inaad hesho macallin wanaagsan. To learn English, si Ingiriiska aad u barato, waxaad u baahan tahay a good teacher, macallin wanaagsan. To learn, si aad u barato English Ingiriiska, waxaad u baahan tahay a good teacher, macallin wanaagsan. A good teacher, macallinka wanaagsan, waxa uu ka dhigaa learning English, barashada Ingiriiska, easier, mid sahlan, and more enjoyable, aadna loogu raaxaysto. A good teacher, macallinka wanaagsan, waxa uu ka dhigaa learning English, barashada Ingiriiska, easier, mid sahlan, and more enjoyable, aadna loogu raaxaysto. They explain, waxa uu sharxaa. Theydan waxaa loola jeedaa rag iyo dumar, wixii uu doono ayuu macallinkaasi ahaan karaa. They explain, waxa uu sharxaa difficulty lessons, casharada adag, clearly, si fasiix ah. They explain, waxa uu sharxaa difficulty lessons, casharada adag, clearly, si fasiix ah, and help, waxa uuna caawiyaa students, ardayda, and help, waxa uuna ku caawiyaa students, ardayda, practice, inay practice gareeyaan, speaking, hadalka, listening, dhegeysiga, and reading, iyo akhriska, and writing, iyo qoritaanka. And help, waxa uuna ku caawiyaa students, ardayda, practice, inay practice gareeyaan oo ku celceliyaan oo sameeyaan speaking, hadalka, listening, dhegeysiga, reading, akhriska, and writing, iyo qoritaanka. A good teacher, macallinka wanaagsan, also sidoo kale motivates, waxa uu dhiirigeliyaa students, ardayda. A good teacher, macallinka wanaagsan, also sidoo kale motivates, waxa uu dhiirigeliyaa students, ardayda, to keep learning, si ay waxbarashada usii wadaan. To keep learning, si ay waxbarashada usii wadaan, and never give up, weligoodna aysan u quusan. And never give up, weligoodna aysan u quusan. They correct, waxay u saxaan mistakes, qaladaadka, kindly, si fiican. And give, waxayna siiyaan useful feedback, jawaab celin waxtar leh. They correct, waxay u saxaan mistakes, qaladaadka, kindly, si fiican. And give, waxayna siiyaan useful feedback, jawaab celin waxtar leh. Okay, oo aan dhaleecayn iyo markaasi dhaliil fara badan lahayn. With the help, caawinta, of a good teacher, macallinka wanaagsan, students, ardaydu, can build, waxay samaysan karaan confidence, kalsooni ayaa samaysan karaan. Improve, waxay u horumari karaan faster, si dhaqsaa, and achieve, waxayna u gaari karaan their goals, hadafyadooda, in learning English, barashada Ingiriiska ah. With the help, caawinta, of a good teacher, macallinka wanaagsan, students, ardaydu, can build, waxay dhisan karaan ama abuuran karaan, okay, confidence, kalsooni. Improve, waxay u horumari karaan faster, si degdeg ama dhaqsi ah, and achieve, waxayna u gaari karaan their goals, hadafyadooda, in learning English, barashada Ingiriiska ah. They encourage, waxay dhiirigeliyaan, macallinka wanaagsan ama macallimiinta wanaagsan. Encourage, waxay dhiirigeliyaan students, ardayda, to speak, si ay ugu hadlaan confidently, si kalsooni leh. They encourage, waxay ku dhiirigeliyaan students, ardayda, to speak, si ay ugu hadlaan confidently, si kalsooni leh. Most importantly, waxa ugu muhiimsan waxa weeye, they inspire, waxay ku dhiirigeliyaan, macallimiinta macnaha, inspire, waxay ku dhiirigeliyaan a love, jacaylka, for learning, waxbarashada, that kaasoo lasts, jira, a lifetime, nolosha oo dhan, cimriga oo dhan. They inspire, waxay dhiirigeliyaan macallimiinta wanaagsan a love, jacaylka, for learning, waxbarashada, that kaasoo jacaylkaasoo lasts, jira, a lifetime,
nolosha oo dhan ama cimriga oo dhan inta la nool yahay. Macnaha macalinka wanaagsan waxbarashada ayuu markaasi jeclaysiiyaa ardayda.